boqolaal shacab ah oo ka murugaysan dhibaatadii dadkii ku dhaawacmay weerarkii isqarxinta ahaa ee 14 bishani ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa isugu yimid madal ku taal xaafadda Isli ee magaalada Nairobi oo dhig lagu shubayay si dadkaasi loogu caawiyo. qaar kamid ah dadkii madasha lagu ururinayay dhiiga isugu yimid ayaa si qiiro leh kaga hadlay weerarkii isqarxinta ahaa ee galaaftay boqolaal shacab ah iyagoona u duceeyay dadkii ku dhintay weerarkaasi waxayna Ilaahay uga baryeen kuwii ku dhaawacmay inuu Ilaahay caafimaad taam ah siiyo. kullu nafsin daa'iqatul maut cid walba ay dhamanaysaa inta dhimatay Ilaahay u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay caafiyo taasi taxsida aan ka leeyahay tan kale waxaan leeyahay meesha waxa u nimaadnay maanta inaan dhiig bixino shalayt ilaa darad waxaan ka shaqeynay wasaaradda caafimaadka iyo Amref International sidii dhiig loo bixin lahaa iyo nidaamka sharciyan maadaama dawladda naga aqbashay waxaana Soomaalida xaafadda shalay lamaanta ugu baaqayna inay aad u soo baxaan dhiig ay baxshaan. waxaan halkan tacsiid tiiraanya looga dirayaa ummadda Soomaaliyeed way naga wala baxday anaga dhan waxa macnaha Soomaali maanta qabiil dhahay ma ahan Soomaali midaan nahay aad baa ugu xumaanay hadda maalmihii maana seexanin halkan waxa uu imaanay in ummadda Soomaaliyeed dhiig ugu deeqan anagoo haween Soomaaliyeed ah marka ما شاء الله وحن لنا هاي سوماليدا انت حنوصل إليها وبوقدي انت لما الله ونحرس قبل نور الله وسار سومالنا بقود برعد إليها واسكو مريو آذي يوم وحنا هاي إلهنا أنا وقبرينا نحرسي تشنا إنه كسي ضدك دورك بقول جارة كل انتي مقالة مقدشة والوجود لي أو قعنا كحق درندي شيء إن يضدك بدن أو دعوة إلهي وحنا وقبرينا إن الله أنت دعوة عن إلهي إنه ما عرفتي إن عافمات سيو أو إلهي وما عرفتي إن عول عيني وحن آذي وحنا هاي وحد دعاية وحكلا عن قمن كرمال أنا وحن بحين كردي جيجا يدقاره وحي أنكيل كره مركو وحن ربنا إن أنا ضدك يصومالي وشيء نميل البيت شوغان inay dhiiga u yimaadaan meeshan Isli way socon doontaa 2 maalmood dhiigooda inay bixiyaan waxaan rabaa inaan meeshan uga tacsiyeeyo dadkii walaalahay ahaa oo lagu gumaaday Muqdisho oo Soomaaliyeed arintaas oo arin aad iyo aad uga murugoonay arin aad iyo aad u falxun arin la rabo in Soomaaliya lagu magaceeda iyo sumcadeeda wax loogu dhimo shacabkeeda lagu dhameeyo jiritaankanaga wax loogu dhimo inay tahay yaan aad uga tiirayeysnahay waxaan cambaareynayaa cid kasta oo lug ku lahayd arintan dhacday oo maanta Muqdisho ka dhacday tacsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka ha u booqadayo Ilaahay jannada ka waraabiyo wixii dhintay wixii dhaawacmana Allah caafiyo. Abdishakuur Farax Igalle Universal TV magaalada Nairobi.